رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد ugu horeyn ilaaha mahad subhanahu wa ta'ala bishii Ramadaan ee barakaysneedna soo gaarsiiyay. ilaahay wax weydiisanaynaa in uu naga aqbalo acmaasha khayrka ah nana waafajiyo, ilaahayna nagu daro kuwa ka faa'iideystay bisha tan loogu dambi dhaafo naartana loo xareeyo. kelmad aan wadaagayno ciwaankeedu wax weeye Ramadaan shahrul musaabiqatu lil khayr. bisha Ramadaan iyo in loo degdego khayrka iyo taacadka iyo acmaasha saalixa ah. acmaasha saalixa ah oo loo dheereeyo, loo degdego, lagu tartamo waa manhaj ilaahay amray oo rabbaani ah, waana ajiibitaan la ajiibayo ilaahay amarkiisa. ilaahay wuxuu leeyahay fastabiqul khayraat, khayrka u degdega, khayrka u degdega iyo ka faa'iideysiga iyo ka qiimaysiga furasta iyo waqtiyada gaarka ah ee khayrka badan ee si gaar ah fadli iyo barakaad dheeraada wata. ilaahay wuxuu amrayaa muslimiinta inay u degdegaan khayrka iyo dambi dhaafka iyo jannada asbaabaha ay ku heli lahaayeen inay u degdegaan. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wasaaricuu ilaa maqfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إلهي وحو ليهي waxaad u dheeraysaan oo u degdegtaan oo u horumartaan dambi dhaaf ilaahay xaggiisa iyo janno ballarkeedu yahay samooyinka iyo dhulalka oo la isku qabtay. jannadaas waxaa loo diyaariyay dadka ilaahay ka cabsada oo muttaqiinta ah. markaasuu ilaahay haddana sheegay sifaadka dadka muttaqiinta ah waa kuwa wax bixinaya oo waxa ilaahay ku risaaqay bixinaya, maalkooda wax ka bixinaya, xilli walbana bixinaya, xilliga dhibka iyo shiddada ay jirto wax la baxaya, xilliga barwaaqada iyo khayrka iyo nimcada ay ku sugayeen wax bixinaya. kuwa qarsada weeye alkaadhimiin alqayd, kuwa caradooda qarsada oo aan aarsan iyagoo awoodi kara inay aarsadaan, caradooda qariya, dadka iska cafiya oo dhaafa, saamaxaada iyo cafiga badan. ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa muxsiniinta ay ihsaanka sameeyay. saadaraad marka waxaan ka arkaynaa aayadaas in khayrka loo degdego uu yahay amar ilaahay uu amray ummadda muslimiinta ah. khayrka loo degdego, loo dheereeyo oo loo tartamo waa manhajkii ambiyada sifaadkoodii. markuu ilaahay ambiyadii ka soo warramay ilaahay wuxuu yidhi إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. waxay ahaayeen kuwa u degdega oo u dheereeya khayrka. saadaradeed baa nabiyullaahi Muusa calayhi salaam wuxuu ilaahay ka warramay inuu yidhi wacajiltu ilayka rabbii litardaa, ilaahay waxaan ku soo degdegay xagaaga inaad raali iga noqotid. oo waxa uu aad shawq iyo hilow ugu hayaa ilaahay iyo la kulankiisa, aadna ugu soo degdegaya. mu'miniinta dadka ilaahay mu'miniinta ilaahay mu'miniinta dadka mu'miniinta ah
magaranaysaay sifaadkooda waxaa ka mid ah dadka ilaahay rumaysan ee mu'miniinta ah ee taqwada iyo cabsida iyo iimaanka dhabta ah ku sifoobay waxaa ka mid ah sifaadkooda inay khayrka u degdegaan una tartamaan ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat wahum lahaa saabiquun ilaahay leeyahy kuwaasi waa kuwa u degdega oo u dheereeya oo u tartama khayrka iyo wanaagga saas oo kale nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxa uu dhiirigeliyey oo booriyey in loo degdego acmaasha wanaagsan ee saalixa ah in loo degdego intaysan dhicin ka hor waxyaabo qofka ka mashquulinaya acmaashii iyo taacaadkii iyo khayrkii inuu falo oo sameeyo wax ka mashquulinaya oo ka leexinaya intaysan imaan inuu khayrkii sameeyo oo ku degdego nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiiska abi hurayra radi allahu canhu wuxuu leeyahay baadiruu bilacmaali fitanan ka qiطaci leyli mudlim yusbixu rajulu mu'minan wayumsii kaafiran wayumsii mu'minan wayusbixu kaafiran yabiicu diinahu bicaradin min addunya acmaasha wanaagsan u degdega intaysan dhicin ka hor fitan saas oo kale iyo waxyaabo ina ka mashquulinaya oo ina ka leexinaya oo ina ka duwaya khayrkii iyo wanaaggii iyo taacadii iyo acmaashii wanaagsanayd inaad samaysaan wax ina ka leexinaya intaysan imaan ka hor khayrka la degdega oo u degdega oo sameeya intaysan dhicin fitantaasoo wax walba isku qaldaysa oo habeen mugdi ah oo kale ah saas oo kale oo qofku ma garanaysaa waa bariisanayo isagoo mu'min ah galabtiina qoraxda ugu dhacayso isagoo gaal ah ama subaxii ma garanaysaa galabtii ay ugu dhacayso isagoo mu'min ah subaxiina waa bariisanayo isagoo gaal ah ilaahay hanaga badbaadiyo fitantaas xadiis saxiixa oo wariyey muslim uu soo saaray nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi tusaale aada u wanaagsan wuxuu ka bixiyey in loo degdego khayrka iyo acmaasha wanaagsan iyo biriga iyo samafalka iyo waxbixinta iyo infaaq xadiis uu warinayo cuqba binu xaarith radia allahu canhu nabiga sal ly slam wuxuu tilmaamaya wuxuu leeyahay cuqba binu xaarith nabiga baa la tukaday salaad casar madiina kadibna markuu casarkii tujiye dadka uu salaamo naqsaday isla markiiba intuu istaagay uu dadkii intuu ka tilaabsaday buu wuxuu galay guryihiisii ama qolalkii u degnaa qol ka mid ah dadkii way la yaabeen oo waxay ka fazaceen oo la yaabeen la argagaxeen nebiga iyo degdega uu degdegay kadibna markuu soo laabtay wuxuu yidhi waxaan xasuustay ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته waxaan xasuustay dahab yaalla guriga kadibna waxaa nacay inay garanaysaa xabisto ii taallo waxaana amray in la qaybiyo waxaan xasuustay shay yaallay oo dahab ah kadibna inuu cibaadada iyo waxyaabaha iga mashquuliyo oo kafakaritaankiisu baa nacay waa la yidhi sidoo kale maalka in la hayo oo dadkii mutaystay laga hayo laga xabiso iyada laftigeedu waa dhibtaas isagoo ka degdegaya nebigu salawatu llahi wasalaamu calayhi buu bixiyey oo amray saa daraaddeed waxa laga qaadanaya marka in khayrka loo degdego iyo gudashada faralka iyo iyo magaraysa waajibaadka infaaqa iyo waxbixintana lagu degdego bisha ramadaan haddan ku jirno si gaar ah waxay u tahay shahr bil khayrka iyo acmaasha san aada loogu degdego nabiguna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu dhiiri gelin jiray arrinkaas isaguna si gaar ah oo bilaha kale uusan u dadaalin khayrka iyo waxbixinta iyo cibaadada iyo taacada ugu dadaali jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh abi hurayra radi allahu canhu xadiidku warinayo nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayhi inuu yidhi idaa kaana awalu leyla min shahri ramadaan
sufidat الشayaaطiin wamaradat الjin wagulliqat abwaab الnaar. xadiiskaas wuxuu nebigu tilmaamayaa waxyaabo waaweyn oo dhacaya oo isbedel ah oo ka dhacaya koonka markay soo gasho bishatan khayrka badan ee ramadaan. waxyaabahaas waxaa ka mid a marka in loo diyaarinayo bisha ramadaan inay tahay bil cibaado oo khayrka laga faa'iideysanayo, wax walba oo qofka ugu caawinaya inuu khayrka ka faa'iideystana loo sameeyey. way ka mid tahay in laga xirxiray shayaadiintii dhibaysay oo magaranaysa waswaas iyo dhumid iyo kaduw dariiqa khayrka ah xaqa ah macaasidana faraysay in laga xiro oo laga xayiro. albaabadii naarta in la xiro, albaabadii jannada in la furo, kadibna uu dhawaaqayo mid dhawaaqaya uu leeyahay yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya shari aqsir. qofkii khayrka doonayow, khayrka kii doonayow, khayr doonihiiyow soo aqbal oo soo dhawow oo ka faa'iidayso bisha ramadaan iyo khayrkeeda. kan khayr darada iyo sharka iyo dhibka wadow iyo macaasida ku dhex jirow ka joog macaasida oo haki oo ka joog oo faraha kala bax. saas oo kale nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxa uu marka xadiiska si gaar ah ugu amraya uguna boorinaya in xilliyada fadliga badan laga faa'iidaysto oo acmaal saalixa looga faa'iidaysto iyo in laga dheeraado munkaraadka iyo waxyaabaha xunxun iyo waxyaabaha ilaahay uusan ogolayn. saa daraaddeed bisha tani waa mawsim iyo bil raxmaad iyo naxariis iyo khayraad fara badan ay ku jiraan, fursadna ah magaranaysaa lagu tartamo khayrka fursad u ah. sidoo kale nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi wuxuu ahaa xilliga bisha ramadaan mid si gaara u dadaala, sida uu tilmaamayo xadiiskii uu warinayay cabdullaahi bnu cabaas. kaana rasuulu llahi sal allahu alay wasalam ajwadu naas wa kaana ajwadu maa yakuun fi shahri ramadaan xiina yalqaahu jibriil oo kama qaala sal ly slam. macnaha nebigu inuu ahaa dadka kan ugu deeqsinimo badan oo ugu karam iyo deeq iyo waxbixin kan ugu dadka ugu dheereeya inuu ahaa. bisha ramadaan si gaaran ah inuu khayrka iyo inuu u degdego iyo waxbixinta iyo karamka iyo deeqsinimada oo aad ugu dadaali jiray xilligaas. waxyaabaha mudan in la xuso oo xilliga kan aad looga faa'iidaysto bisha ramadaan oo lagu degdego oo acmaasha khayrka ah waxaa ka mid ah soomkii baa ugu horeeya. soomku maadaama bisha ramadaan uu waajib yahay si gaaran loo waajib yeelay, marka qofku inuu soomka bishaas inuu soomo oo amarka ilaahay uu qaato waajibkaasna fuliyo aad bay wax u tahay munaasib, aad bay wax u tahay arrin magaranaysaa waajib ah. sidoo kale inuu ka dadaalo oo ka dheeraado oo iska jiro wax walba oo ka fasahaadinaya oo dhaawacaya oo ajar ka yareynaya bisha ramadaan soomkeedii iyo khayrku samayn lahaa, iyadana aad bay wax u tahay arrin aad loogu baahan yahay. nabigu salawaatullahi wasalaamu calayhi wasagi lahaa man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembih. qofkii bisha ramadaan sooma isagoo ilaahay rumaysan inuu ilaahay ku waajib yeelay, xisaabsanaya oo ajar gurubsanaya oo ilaahay inuu ka abaalmarinayo ajar weynna siinayo magaranaysaa xisaabsanaya, wax kale oo dan kale aan ka lahayn ilaahay wejigiisa iyo dar ilaahay u soomaya, qofkaas ilaahay waa u dhaafaa dembigiisii hormaray. saas oo kale dembigii macnaha dembiyada saqaa'irta baa loola jeedaa, kuwa magaranaysa kabaa'irta ah sida axaadiista qayb ka mid a tilmaamayaan waxay u baahan tahay towba iyo toobadkeen gaar ah. sidoo kale inuu qofku iska ilaaliyo waxyaabaha dhaawacaya aad bay muhiim u tahay. nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh xadiiska abi hurayra oo bukhaari wariyey waa isagii tilmaamayey man lam yadac qawla zuuri waalcamala bihi waaljahl falaysa lilahi xaajatun an yadaca طacaamahu wa sharaabah. qofkii aan ka tegin oo aan ka dheeraan hadalka beenta iyo baabilka iyo ku camalfalkiisa iyo macaasida waxdana ilaahay kama laha in uu cuntada iyo cabitaanka ka tago. bimacnaa
waxba uma falayso oo faa'iidaha ka dheefi maayo soonkiisa qofkii aan ka tagin muharramaadka waxyaabaha ilaahay xarimay iyo laqwiga iyo beenta iyo namiimada iyo isku dirdirka iyo waxyaabaha la halmaala ee dhaawacaya soonkiisa qofka iska xalaashanaya aan ka tagayn waxba ka faa'iidi maayo oo ajarkii ka heli maayo ma garanaysaa bisha ramadaan iyo soonkeedii waxa kamid ah acmaasha aadka loogu dadaalayo xilliga kan in dadka sooman la afuriyo oo iftaar la sameeyo masaakiinta la quudiyo aad loogu dadaalo bisha tan ay tahay bishii isxiriirinta iyo fuqarada in loo caawiyo iyo dadka masaakiinta in loo roonaado iyo in ma garanaysaa si gaar ah loogu dadaalo wax bixinta nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi xadiiskii Zayd bin Khalid isaga tilmaamayay man fatara saa'iman kana lahu mithlu ajrihi غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا qof oo sooman afuriya wuxuu leeyahay ajar qof sooman oo kale iyadoo aan laga nusqaaminayn qofkii soomanaa ajarkiisa ee ajar kale ilaahay uu fadilayo oo fadligiisa iyo dheeraadkiisa u siinayo ajar kale hal qof qofkii afuriya waa saas laba qof qofkii afuriya sida saas oo kale laba ajar buu leeyahay laba qof oo sooman buu helaya ka badan saas oo kale waxa aad munaasib u ah in bisha tan aad loogu dadaalo Soomaalidu aad bay u dadaashaa laakiin haddana aad baa looga fiican yahay dhinaca wax bixinta iyo bisha Ramadaan dadka in la afuriyo oo meelo waaweyn lagu afuriyo oo magaranaysaa jeebka la furo xilliga kan oo si gaar u taagan tahay dhibaato iyo shido iyo abaaro aad baa lagu baahan yahay in lagu dadaalo magaranaysaa afurinta iyo ka qayb qaadashada wanaag iyo khayrka iyo dadka caawintiisa waxa kamid ah waxyaabaha la doonayo in lagu tartamo oo aad loogu dadaalo oo loogu dheereeyo acmaasha khayrka ah oo bisha Ramadaan si gaar ah u fadli badan nabiguna tilmaamay qiyaamul layl habeenkii in la istaago salaatul laylka la tukado salaat taraawixda la tukado lagu dadaalo qiyaamul laylka magaranaysaa cibaadada aadka u khayrka badan oo sharafta badan una qiimaha badan thawaab iyo ajr fara badan leh nabiguna tilmaamay sallallahu alayhi wasallam ali hadiis Abu Hurayra warinayo Bukhari iyo Muslim soo saareen in man qaama ramadaana iimaan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi qofka istaaga bisha Ramadaan oo salaatul laylka la yimaada in dambigiisa la dhaafayo nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam ali waxyaabaha acmaasha khayrka ah oo mudan in aad looga faa'iideysto laguna dadaalo waxa kamid ah quraanka iyo akhriskiisa bisha Ramadaan si gaar maadaama ay tahay munaasabad gaar ay la leedahay bisha Ramadaan oo ah bishii uu soo degay quraanku Ilaahay soo dajiyay lana doonayo in qofka uu ku dadaalo quraanka iyo akhriskiisa nabigeena sallallahu alayhi wasallam alayhi uu si gaar ah ugu dadaali jiray bishaas si gaar ah magaranaysa quraanka iyo mudaarisayntiisa oo Jibriil u iimaan jiray oo la mudaarisayn jiray quraanka marka in la akhriyo oo lagu dadaaliyadana aad bay u tahay arrin aad u wanaagsan oo fadli dheeraad leh loona baahan yahay in magaranaysa lagu dadaalo lagu tartamo xilliga kan iyo bisha tan khayrka ah loona faa'iideysto quraanka nabigu wuxuu leeyahay iqra'ul qur'aana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafii'an li ashabi quraanka akhriya oo akhriskiisa ku dadaala wuxuu imaan doonaa maanta qiyaame inuu shafaac qaadayo oo u doodayo qofkii akhrin jiray iyo qofkii akhrin jiray oo ku amal fali jiray oo ku dadaali jiray quraanka iyo akhriskiisa uu doodaya saadaraad marka bisha tan bishi quraanka la mudaaraseeyo oo la dhigto oo la magaranaysa la akhriyo oo laga faa'iideysto oo macnihiisa lagu tadabburo weeyaan aad baa lagu baahan yahay arrinkaas in lagu dadaalo sidoo kale umrada bisha Ramadaan la soomo la umraysto oo xajka la aado iyadana amal aad u khayr badan oo mudan in lagu dadaalo dadka Ilaahay siiyay maalka oo awoodi kara inay tagaan oo ay ka faa'iideystaan xilligaas in fursadaas aysan dayicin ay ka faa'iideystaan nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam alayhi umratun fi Ramadaan ta'dilu hajja aw ta'dilu hajjatan ma'i bisha Ramadaan umrada la umraysto waxay u dhigantaa hajj ajarkiis saasoo kale ama hajj la xajiyo nabiyullaahi Muhammad bay u dhigantaa xagga ajarka waxyaabaha lagu dadaalayo bishaan oo laga faa'iideysanayo waxa kamid ah in qofku waxyaabaha faralka ay oo dhan ku dadaalo salaadihii iyo xilligeedii in la ilaaliyo lagu dadaalo ma garanaysaa sakadii iyo bixinteedii hadii qofku xilligii ku soo wareegay saasoo kale ku dadaalo sadaqadii iyo bixintii iyo infaaqii iyo dadka ma garanaysaa oo la quudiyo oo aad ugu dadaalo labada waalid iyo baarnimadooda waajib mar walba ku ahayd xilliga si gaarana ugu dadaalo qaraabadii xiriirinteedii aad loogu dadaalo toobada iyo Ilaahay in loo noqdo oo loo toobad keeno oo ma garanaysaa dambiga laga dhaxbaxo iyadana in aad loogu dadaalo ducada iyo alla bariga iyo qofku inuu Ilaahay cibaadadaas khayrka badan oo garanaysaa
aadka u wanaagsan oo ma garanaysaa ducada ah in qofku aad ugu dadaalo ilaahayna in badan sheegay ducada iyo qiimaheeda quraankiisa ku sheegay axaadiista in badan nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi ku sheegay fadaaisheeda saadaraad marka xilliga kani waa xilligii in khayrka loo tartamo oo loo dheereeyo oo lagu tartamo oo ma garanaysaa lagu dadaalo oo laga faa'iideysto bisha tan weeye qofku ma garanayo bil labaad mar labaad inay ku soo laaban doonto iyo in kale saadaraad hadda uu jooga sidii iyadoo aan ku soo laabanayn aad u dadaali lahayd oo kale in qofku u dadaalo oo guntiga dhiisha iskaga dhigo aad baa loogu baahan yahay tobanka dambe oo ugu dambeeyana si gaar ah nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi ugu dadaali jiray khayrka marka bisha tan ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu khayrkaada na waafajiyo kuwa ku dadaala khayraadka iyo acmaasha san wanaagsan ku dadaala oo garanaysa ku kala dheereeya oo ku tartama ilaahay hanaga dhigo hada wabillahi tawfiiq wa salatu wa salam ala rasuulillah.